iyo nolol waxaa weeye waa horumarka iyo magaranaysaa ummadda Soomaaliyeed rajadeedii weeye cid diidi karta male xaqiiqda dhabta cid diidi karta haba yaraatee ma jirto waa markii ugu horeysay muddo 30 sano ah Muqdisho hal sano muddo hal sano uusan qarax ka dhicin waa markii ugu horeysay Muqdisho muddo hal sano lagu dilay dad aan gaaraynin 2 qof 3 qof waa xaqiiqda dhabta weeyaan waxaan rabaa marka inaan maanta siday tahay u kor istaago 3 qodob aan ka hadlaan rabaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo qodobka koowaad aan ka hadlay waxa weeye waayaha cusub xanaaqa iyo maseerka inay caytamaan ayagoo fanaaniin siyaasadda soo dhaxgalaan sirta ka dambaysan idinka dabageynaya marka koowaad insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan ku hormarayaa dhalinyaradan Soomaaliyeed ee heesi jirtay ee Nairobi joogi jirtay ee loo yaqaan waayaha cusub yaa social media shalay darrata qolooyinkii magaranaysaa mucaaradka ahaa iyo qolooyinka al-shabaab la shaqaysanayay iyo qolooyinkii nabadiidka intay lacag siiyeen ayagoo fanaaniin ah inay tay social media soo fariistaan ay yiraahdaan nabar iyo naxdin biiq dabada ruux waan raab gareeraynaa iyo nabar iyo naxdin inay yiraahdaan sirta ka dambaysan idinka dabageynayaan oo duqbulow waa xaqiiqda dhabta fanaaniinta Soomaaliyeed gabar iyo wiil basharaf bay iga mudayn anoo duqbulow waa fanaaniinta Soomaaliyeed wiil iyo gabarba oo heeso oo luqadda afka Soomaaliga ku heeso anoo duqbulow iyo ummadda Soomaaliyeed waxay ka mudayihiin cizi iyo sharaf iyo karaamay ka mudayihiin laakiin fanaanka markuu siyaasad soo dhaxgalo qabiilku door ha ahaado oo uu mar siyaasad soo dhaxgalo oo hunguri iyo gaajo ay soo dhaxgeliso oo weedab daraado oo ummadda Soomaaliyeed rajadeeda uu ka hor yimaado aniguna waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed oo uu suuqiisa shiday yahay oo wanaaga iyo fiicnaanta ummadda Soomaaliyeed mar walba ka hadlo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xalaasha ah ee cadawga nacab ee al-shabaabka nacab ee nacab dawladiidka nacab sirta ka dambaysan idii sheegayay aad iyo aad ii dhageysto maalimahan baan ku daba jiray waan ogaanayay lacag baa la bixiyay say wax ku dhacday xanaaqan meesha ka yimid baan wax yar idinka daba geerayo wixii caytamo kuwa xalaasha ee nabadda iyo nolol sheer garay aad iyo aad waxa waqaadka waxa waa shacabkayga weeye kuwan meelaha beejkayga ku caytamo waxa weeye green light basi ninka kaliya hooyo caayo ayaan blog garaya laakiin intooda kale waa xor weeye waa freedom of speech ayay haystaan beejajka kale ee nimanka mucaaradka leeyihiin hadday hadda tagaan iyo ragga saaxiibada ee social media live-ka soo galo ee dawladda ka soo jeed beejajkooda hadday galaan blog baa lagu qabanaya anigu ninka kaliya xiran xarig u diro in maxkamad saara waa qofka hooyo caayo weeye laakiin waxa kale iska caytamayo ee magaraysa iska kaftamayo waa iska daayaadiyad waxaan rabaa marka arrintan inay idinka dabageeyo horta marba fanaan hadduu siyaasadda soo galo waa bagdhi weeye waa nacas weeye waa bahdilan aad iyo aad buu bahdilan marka waxaan rabaa arrintan maalimahan jirto iyo xaaladda maalimahan jirto inaan siday taa u kor istaago kow waayaha cusub waxa gudoomiye waa shiin akhyaar qabiilkiisa idin sheegi maayo anigu laakiin waa fanaan buu ahaan jiray dhalinyaradii Nairobi joogtay ee magaranaysaa ee Soomaalinimada iyo wanaaga iyo al-shabaab ka soo qayb qaatay bay hayeen karnadkoodaas way leeyihiin marnaba laga qaadi maayo laakiin xaarkan iyo wasaqdan iyo waxay maanta dhax fadhiyaan siday tahay bal sheeg horta shiin akhyaarow diyuus baa tahay rudan ku sheeg wallahi been ma diyuus baa tahayo ninka mar hadduu diyuus yahay xishood male waa lagu tufiidka la gaarsiinayaa marba hadduu ninka diyuus yahay diyuus waxaa la yidhaahdaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadda ka hor buu ka hadlay hadda ka hor ayuu ka hadlay waxaa weeye diyuus waxaa weeye ninkaan xishoonin weeye waa ninka magaranaysaa qooridiisii iyo magaranaysaa gurigiisii iyo eelkiisii aan ka xishooninoo bannaanka soo dhiga weeye shiina akhyaar ninka yiraahdaan gudoomiyaha waa ururkan gabadha fanaanada ah maasha Allah sharaf bayga mudanta caayigama mudnay falis la yiraahdo waa xaaskiisa weeye kow ee dhageystaan maro waa xaaskiisa weeye caruurta uu aabaha u yahay ayay hooyo u tahay maasha Allah laakiin shiina khiyaar ina markaan diyuus leeyahay inaan fasiraan raba siday tahay inaan u fasiro umada fahantaan raba anigu muwaadin Soomaaliyeed baan qof muslim baan qof islaam ah baan ahay
igama suurtooda gabadha ooridayda ee xaaskayga ah een anigu qabo inaan public intaan keeno dhaho hees oo niiki oo marada qafiifka xiro oo ma garanaysaa cawradaada iyo ma garanaysaa view iyo waxaad ku raadisaa dhaqaale ku raadi igama suurtooda xaaskayga guri baan geyni gurigeeday joogi anaa soo bixiyo taraag fuuli anaa shaqaynay oo shaqaysan oo xamaalan oo ordi oo lacag iyo wixii aniga aan rabay carruurteedii xaaskaygii ay ku noolaanayaan anaa soo saarayo oo ma garanaysaa bannaanka keenay igama suurtowdo dayuusnimo inaan anigu gabadhayda public keeno dhaho kaalay niiki la niiki lixle iyo ma garanaysaa bahalkii la niiki inaan dhaho igama suurtowdo horta ninka dawlad waxba kama qaadi karo farmaajada radiyallahu anhu annaga jecel nabad iyo nolol ummadda Soomaaliyeed baa jecel qarxii bay inaga joojisay qarxii ayay inaga joojisay qarxii bay inaga joojisay hooyooyinkii Soomaaliyeed bay cashuur teedii laga qaaday bay dib ugu celisay carruurtanadii baa iskuul aadayso lagama yaabo dayuus gabadhiisii public keeno oo niiki dhahay waryaa shiina khiyaarow idaacad baad soo xishoon maysid oo nin xishoodo oo damiir dadnimo iyo bilaaadnimo lamaan waryaa fanaaniin rag badan baa hayso